السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وناكسن داوديال meel kasta dunida nagala socotaan. waa maalinimo Arbaca bisha December ay tahay 1 sanada 2021 qodobada aad barnaamijkeena ku maqli doontaan waxaa kamid ah warar degdeg ah oo naga soo gaaraya furimaha dagaalka dalka Itoobiya iyo magaalooyin muhiim ah oo la kala wareegay. jaamacadda Gondar oo ku taala dalka Itoobiya oo shahaadadii kala noqotay laba qof oo dalkaasi caan ka ah sabab la xiriira taageero ay u muujiyeen kooxda TPLF. dhanka Soomaaliyana xaaladda magaalada Boosaaso ayaa wali qasan waxaana ka bilowday magaaladaasi qax ayaa la soo sheegay. qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. barnaamijka waxaa igu heliyay saaxiibkay Maxamed Wacane oo alaab inoo falanqeeya xaaladaha guud ahaan dunida gaar ahaan geeska Afrika. Maxamed Wacane soo dhawow barnaamijka ku soo dhawow xaaladda dalka Itoobiya warar degdeg ah ayaa ka soo dhacaya leeyahay furimaha dagaalka dalka Itoobiya wararka degdega ah ee hadda aad helayso ku soo gaadhaya maxay yihiin bal hor cabdixakiin aad baad mahadsan tahay dagaalkii ka socday dalka Itoobiya kolba meel wuxuu soo gaadhaba waxaad moodaa in ay u caana shubatay ama yacni uu u shubtay dhanka dawladda in ay ku awood sareeyaan dagaaladii ugu dambeysay ee ka dhaca gobolka Axmaarada iyo kan Canfarta deegaamada xuduudda la gobolka Axmaarada waxaana halka ka aragtaa in xooga TDF ta aad moodo in laga saarayo goobo cusub marba marka ka dambayso ra'iisul wasaaraha oo dagaalka horboodayo kolba furimo cusub furaya ayaa maanta waxay galeen ciidamada ra'iisul wasaaraha iyo xulfadiisu ay hogaaminayaan magaalada Orbit iyo sidoo kale magaalada Dobko oo oon saa uga fogeyn magaalada Gasheena oo shalay ay qabsadeen ciidamada dawladda federaalka ee Itoobiya waxaana moodaa in ciidamada dawladdu ay dib boorka iskaga jafeen oo xooga xoreynta Oromiya iyo kuwan ciidamada TDF ta meeshii ay ku arkaan ay inta badan ay dawladdu ku gacan sareyso waxaana moodaa in dhaqdhaqaaqan uu wada ra'iisul wasaaraha iyo abaabulkan uu wado in laga saari doono xooga TDF magaalooyin waaweyn sida magaalooyinka Daze oo ay haystaan muddo ay haysteen iyo magaalooyin aad u fara badan oo ay kamid tahay Komboljo sida ay ku soo waramayaan ciidamada dawladda iyo dhamaanba warbaahinta dawladdu waxay sheegaysaa in ay ku wajahan yihiin ciidamada ra'iisul wasaaruhu halkaasi waxayna sheegeen inay ka saari doonaan goor aan saa u fogeyn marka abaabulku cabdixakiin mayaro oo dawladdu federaalka ee Itoobiya waxay si fiican hadda ugu wajahan tahay in ay xoogani ka saarto goobaha ay haystaan waanu arki doonaa waxay ku dambaysaa xaaladdu waa maasantahay Wacane dawladda federaalka dalka Itoobiya waana weyn wixii ku dhacay bilihii la soo dhaafay isla markaana laga soo eriyay magaalooyin waaweyn oo dalkaasi ku yaala haatanse waxay u muuqdaan kuwo awood kala helay oo dalkiiba raba inay kolba soo saarayaan magaalo cusub iyo furmihii dagaalka inay ku gacan sareeyaan maxaa awoodan u keenay dawladda federaalka Itoobiya ayaa loo maleynayaa ciidamada federaalka Itoobiya maxaa ku soo kordhay arintani horta aad ayaa loo falanqeynayaa oo warbaahinta caalamku isha ay ku haysaa meesha ay wax marayaan ayada aan ogeyn in warbaahinimihii caalamka kuwa ugu waaweynaa dalka laga saaray sida CNN iyo yani warbaahimaha waaweyn afka dheer ee reer galbeedka waxaad moodaa marka in dagaalkii wixii buunbuunin jiray ama yani kolba meeshan ay qabsan TPLF waxaan dhigi jiray inay warbaahinta reer galbeedka ahayd sidoo kale tana waxaad moodaa in ciidamada dawladda federaalka ay ka heleen dhiirigelin ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa oo furimaha dagaalka kula sugan ciidamada waxaan ogeyn markii dagaalku uu dhaco intooda badan inay kala cararaan oo ay u galaan kooxaha qaarna ay diriiska intay iska siibaan ay shacab noqdaan sida ay kusoo waramayeen warbaahimaha kala duwan ee caalamka laakiin waxaad moodaa hadda inay dhiirigelin iyo calool adayg ay ka heleen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiis in ay ay heleen fursad ay ku dagaalamaan sidoo kale waxaa jira wadamo waaweyn oo la sheegay in ay dagaalka qayb ka yihiin ama ay ka helayaan ay ciidamada hub siinayaan iyo zaanad kala duwan sida wadanka Imaaraadka dhawaan ku dhawaaqay inuu garab taagan yahay dawladda federaalka ee Itoobiya iyo wadamada Turkiga iyo sidoo kale wadamo aad u waaweyn ayaa la sheegayaa oo ka zaacidayo dhanka cirka marka dagaaladu inta badan waxa garab socdo duqeymo kala duwan oo lala beegsanayo meelo la bartilmaameedsado laba malaynayo inay ku sugan yihiin xooga TDF taas ayaana fududeynayso in ay ciidamadu horumar ka sameeyaan dagaaladii ugu dambeeyay ka socday dalka Itoobiya marka qabsashooyinkan magaalooyinkan cusub ma aha arrin ku imaatay dheeldheel cabdixakiin
gobolka canfarta waana weyn in hore looga saaray kooxaha TPLF-ta iyo weliba xulafadooda ay waxaa la leeyahay hadda waxay usoo dhaqaaqeen kooxihii canfarta iyo dowladda federaalka Ethiopia ciidamadeedii dhinaca gobolka Axmarada waxayna rabaan halkaas inay kasoo galaan xooga TPLF-ta oo ay gobolka Axmarada la isugu imaado magaalo ay qabsadeen baa jirta oo ay kula wareegeen kooxaha canfartu maanta laga soo sheegayo magaalada gobolka Axmarada magaaladaasi oo xuduudka ku taala magaaladaasi waatee halkeesna hadda ay kala joogaan magaaladani waa magaalo istiraatiijiya waxayna kala badhaa xuduuda gobolka canfarta iyo kan Axmarada magaaladan waxaa la yiraahdaa Aleelu Sululu marka waa magaalo istiraatiijiya oo ay xoogaga TDF-tu halkaasi ay haysato oo laga saaray maanta waxayna ka mid tahay magaalooyinka maanta horumarka weyn laga sameeyay dagaaladii ka socday dalka Ethiopia dagaaladan waxaad moodaa in saddexdii bari ama toddobaadkii ugu dambeeyayba la riixayo xoogan kolba meelo cusub laga qabsanayo arrintanina waa arrin aad isha loogu hayo oo caalamku uu fiirinayo bal Ethiopia waxa ay sameyn doonto waxaa la arkayay in dawladdu ay hanjabaado kala duwan ay diraysaa iyagoo ku sugan furimaha dagaalka sida ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa waxaana la arkayaa in dagaalkan Ethiopia uu dhan u caana shuban doono toddobaadadan soo socda sida ra'iisul wasaaraha uu sheegay waan gartay dhanka kale dowladda federaalka dalka Ethiopia waxay wadaa dhaqaaqyo dhanka cirka ah oo ay ku bartilmaameedsanayso kooxaha kaga soo horjeeda dagaalka magaalada Makale oo kamid ah magaalooyinka Tigrayga isla markaana u ah magaalada fadhiisinka u ah ee madaxdu ay joogaan ayaa laga soo sheegaya duqeymo xoogan tan iyo shalay duqeymahaasi ma la ogyahay wax waxyeeloobay iyo cid wax ka soo gaadhay iyo meesha la bartilmaameedsaday intaba horta Cabdixakiin oo saad ogtayba dawladdu isbuucyadan iyo bilihii la soo dhaafayba waxay duqeymo kala duwan oo kala joogsi lahayn ka waday gobolka Tigrayga ayadoo u aaneynayso inay meelaha ay duqeynayso inay ku sugan yihiin madaxdii xooga TDF balse arrintu aysan sidaa ahayn sida uu sheegay afayeenka ururka TPLF Getachew Reda waxayna sheegeen inay dawladdu ay bartilmaameedsanayso dad rayda oo xasuuqayso marnamana ayna u suurtageli doonin in ay yacni duqeymahaasi ay la beegsato yacni maamulka ugu sarreeyo dalkaasi yacni gobolkaasi ama ururkaasi waxaadna halkaa ka arki kartaa maalin dhaweyto afayeenka iyo xukuumaddiisa ururka Tigrayga ugu sarsarayso waxay soo bandhigeen sawirro muujinayo inaysan mid ka dhimanin ayadoo dawladdu ay sheegtay in ay halkaasi ay duqeymo la haleeshay nimanka ugu sarsareeyay ururka TDF-ta halkaasina waxaa laga arkay inay dhammaanba ay u kulmanayeen ururkaasi yacni xubnaha ugu sarsareeyo marka duqeymahani hadda sida dhabta ah lama sheegin meesha saxda ee lala bartilmaamay ama dawladdu ay la haleeshay laakiin afayeenku wuxuu intaasi ku sii daray in ay dawladdu ay wado baacsi ama baabiinayso dadka u dhashay gobolka Tigrayga arrintaasina wuxuu sheegay inay noqon doonto dambi dagaal haddii aan usoo leexan dhinaca dadka taageera kooxda TPLF-ta waxaa la soo sheegayaa jaamacadda Gondar oo ku taala gobolka Axmarada inay kala noqotay shahaadadii laba qof oo horay uga soo muuqday TV-yada caalamiga ah isla markaana iyagoo taageeraya kooxda TPLF-ta maxaa sabab ah baa la leeyahay mase noqon karaysaa baacsigii lagu hayay dadka Tigrayga ay horay ay usoo saareen wadamada reer galbeedku in uu ku cadeyn karayo dowladda Ethiopia halkaas horta arrinta ka jirta dalka Ethiopia ma jirto hadda xorriyatul qowl dhab ah oo laga sheegi karo dalka Ethiopia sida rabtana waxba oo ma cabiri kartid dhaktar lagu magacaabo Alini iyo mid kaleeto oo asaga lagu kulmiyay TV caalami oo halkaasi ka hadlay ama ka falanqoonayay arrinta dalka Ethiopia ayuu ka hadlay dhaktarkan Dr. Alini wuxuuna dhaktarkani ka soo baxay jaamacadda Gondar ee gobolka Axmarada wuxuuna sheegay ama uu taageeray dagaalka ka socda dalka Ethiopia in yacni xasuuq loo geysanayo dadka u dhashay gobolka Tigrayga wuxuuna ka hadlayay arrimo khaas ah oo ay ka mid ahayd duqeymihii loo geysanayay dadka Tigrayga ee gobolka magaalada Maqale iyo agaarkeeda ku dhaqan arrintani ayay jaamacaddu war ka soo saartay waxayna sheegtay in ay tahay ninkani uu ka mid yahay ururka TPLF unana mathalin unana ahayn dhaktar ay sidaa darteedna waxayna ogala laabatay aqoonsigii ama jaamacaddii shahaadadii ay siisay
aad baad mahadsantahay wacane haddii aan u leexano dhinaca dalka soomaaliya magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland oo xaalad qasan ay ka taagnayd maalmahanba waxaa laleeyahay xaaladeedii kasii dartay waxaana maanta ka bilowday magaalada qax xoogan iyadoo halkaasi xiisado laga soo sheegayo magaaladaasi wax uga jiraan maxaase socda aad baad mahadsantahay cabdixakiin dalka soomaaliya gaar ahaan puntland waxaa ka socdo arrin aad u xun oo ay sababtay arrintii xilka qaadistii loo geystay madaxa kooxda p s ta ama yani ciidamada p s ta sidaa darteedna waxaad moodaa in hadalla isdhaafsi badan uu socday maalmahani oo la isku hahanjabiyay labada dhinacba madaxweynaha oo hadlay ama la hadlay t v laga leeyahay dalka soomaaliya wuxuu sheegay in aysan ahayn wadanka ama gobolka puntland inuusan ahayn ama uun ka jiri karin laba dowladood oo iskarab socda iyo laba ciidan sidaa darteedna maanta waxaa bilowday dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay sameynayaan ciidamada p s ta oo halkaasi ka wada dhaqdhaqaaq kala duwan waxaana la arkaya dad aada u tiro badan oo ka qaxayo magaalada boosaaso kuwaasi oo ka cabsi qaba inuu meeshaasi dagaal uu ka qarxo arrintaasina waa arrin aada looga xumaado in xilligan ay dad ama dagaal uu ka dhaco gobolka puntland aad iyo aad baad umahadsan tahay maxamed daawadayaal wuxuu ahaa saaxiibkay maxamed oo ila falanqeynayay xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska africa intaan ku kulmayna barnaamijka xiga waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.